بسم الله الرحمن الرحيم. إيبا مهله مولها خلقي مجن إله باله ملائكة خيركم وديو محمد بانور له اللهم صل وسلم وبارك عليه. كلنتي وعن أو وناكسن ومركنة برنامج كاني هالأبورك ما بها الأبورك عسياتك وحلقة شناد يقيبتي قدام بيسي إن كشيء كيسن دونا الله بقضب وحيابها الدلاء هالأبورك iyo sidee loo joogtayn karaa hal abuurka labadaas qodob baynu isku day doonaa inaynu ku soo gabagabayno barnaamijkeena muddada inoo soo socday qodobka koobaad haddaan ku horeeyo waxyaabaha dila hal abuurka waxa kow ka ah baqdinta inuu qofku ka baqo inuu qaldamo iyo inuu ka baqo inuu fashilmo haddii aad baqdintaasi jirto baqdini kaa gasho waxa aad doonayso inaad samayso fikradda baqdini kaa gasho inaad khaldanto baqdini kaa gasho inaad ku fashilanto waxaan ku suuragalnaa baqdini kaa gasho hal abuurkii uu dhimanayaa mana sii jiraayo waxa laga yaabaa fikraddii kugu jirtay haddii baqdintaas ku soo waajahdo inay aad sidaa ku joojiso qodobka labaad dila hal abuurka waxyaabaha dila hal abuurka ka mid ah waxa weeye in loo xidhnaado amaba loo dabranaado dhaqanada bulshada waxaa jira dhaqano bulsheed oo mararka qaar aan saamaxaynin in wax cusub la sameeyo ama wax cusub la soo kordhiyo marka haddii loo dabranaado dhaqanada bulsheed haddii loo dabranaado dhaqanada deegaanada waxay noqonaysaa inaan bulshadii la horumarin karin inaan wax cusub la sameyn karin inaan noloshiina la fududeyn karin qodobka saddexaad ka mid ah waxyaabahaasi waxa weeye kalsooni la'aan inaad kalsoonidu kugu yar tahay taad naftaada ku qabto taad fikradahaada ku qabto taad wax soo saarkaaga ku qabto aad kalsooni ku qabin haddii kalsoonidaadu yaraato kalsoonidaadu koobnaato kalsoonidaadu hoos u dhacdana way yaraanaysaa wixii aad soo saaraysa isla markaana fikradahaaga inay hakad galaan oo dabadda u soo bixi waayaan oo heer fulneed gaari waayaan ayaa suuragal ah sidoo kale qodobada ama waxyaabaha dilaha hal abuurka waxaa ka mid ah baqdin aad ka qabto mas'uuliyiintaada ama maamulkaaga amaba ururka ama shirkadda aad joogto cidda maamusha tusaale ahaan waxaad tiri waxbaan soo kordhinayaa fikradda noocaas baan hayaa inaad ka baqayso inaad fikradda u bandhigto inaad kala sheekaysato inaad even haddii hadhowtoole aad fikradda dhiraandhirinteedii iyo fulinteedii wax qaldamaan in lagu canaanto marka aad iyagii ka baqayso waxay dilaysaa hal abuurkaagii iyo inaad fikrado cusub soo kordhin karto ama wax cusub soo saari karto sidoo kale waxyaabaha dila waxaa ka mid ah dadku tiirsanaanta inaynu cid wax ka sugno inaynu cid ku tiirsanaano inaynu nidhaahno inagu waxaas laynoo samayn doonaa waxaasaynu sugaynaa waxaas ciddaas samaynaysaa waxay dilaysaa hal abuurkii nagu jiray eebaynoo uumay ee gudaheena ku jiray fikradihii nagu soo dhacayay ayay dilaysaa oo aynaan samaysan karaynin waxaanay hoos u dhigaysaa garaadkeeni iyo maskaxdeeni sidoo kale waxyaabaha dila hal abuurka waxaa ka mid ah dib u dhigista fikrad baa kugu soo dhacday waxaad damacday inaad samayso ama fuliso fikraddaasi haddana waxaad marba dib u dhigaysaa waqtigii waxaad marba dib u dhigaysaa shaqadii waxaad marba dib u dhigaysaa fulintii waxay dilaysaa hal abuurkii waxaanay dilaysaa fikraddii marka fikradda kugu soo dhacda haddii aad ku qanacdo haddii aad u aragto inay ama mushkilad taagan xalinayso amaba waxa kugu dhaliyay fikraddaasi ama waxyaabaha kugu soo riday aad garanayso inay muhiim yihiin dib ha u dhiganin samee oo fuli ku dhaqaaq shaqadeedii isla markaana hirgeli waxa ugu dambeeya kuguna culusi waxa weeye hoggaan xumada fikradaha waxa dila dadka hogaaminaya dadka fikradaha haya haddii dadkaasi la dhiirigelin waayo haddii dadkaasi la garab istaagi waayo haddii dadkaasi lala sheekaysan waayo fikradahaasi way dhimanayaan hoggaanku hadduu kaa xumaado waxba kuma hagaagayaan marka hoggaan xumadu waxay ka mid tahay waxyaabaha hal abuurkeena hoos u dhigay waxyaabaha hal abuurkeena dila waxyaabaha dadkeena doonaya inay wax sameeyaan waxoodii u suuragelin waaya intaas haddaan kaga imaado waxyaabaha dila hal abuurka oo aan u galo sidee loo joogtayn karaa hal abuur ganacsiyeedka in la joogteeyo hal abuur ganacsiyeedku mar walba ganacsiga waa u muhiim ganacsiga jiritaankiisu waa inuu hal abuur lahaado
ganacsiga jiritaankiisu waa inuu horumar jiro, ganacsiga jiritaankiisu waa inuu la jaan qaado waqtiga iyo waayaha iyo deegaanka uu ka samaysan yahay. kolka joogtaynta hal abuurka, in hal abuurkii la joogteeyo, inuu hal abuurkii ahaado wax mar walba la samaynayo, inuu ahaado haddii maanta wax la soo saaray aan la odhanin sanadkan wax dambe soo saari mayne, uu ahaado wax mar walba jooga, mar walba la isweydiinayo, wax mar walba laga sheekeysanayo, fikradba fikrad inoo dhiibto, fulinba fulin inoo dhiibto. haddaba waxyaabaha saacidaya amaba caawinaya in hal abuurkeena aynu joogtayno waxa kow ka ah inaynu maal gashano fikradaha, ku maal gashano waqti gelino fikradahaasi, ku maal gashano adduun iyo lacag aynu u hurno, sidoo kale aynu ku maal gashano inaynu dadkii fikradahan sameynaya aynu maal gelino, ilaashano, dhowrno, tayayno, horumarino, lacag u ogolaano fikradahan waxay ku fulayaan iyo waxay lagu soo saarayo siday u qabsoomayaan adduun aynu u huri karno. sidoo kalena waqti gelino aynu ogolaano in fikradahan waqtiga ku habboon ku filan ay qaadan karayaan la siiyo, loona daayo inay wax kaga soo baxaan. waxyaabaha kale joogtaynaya hal abuurka ama hal abuur ganacsiyeedku waxa weeye inaynu hal abuurkeena maamulno hal abuuradaynu soo saarayno, maamulno fikradaha aynu samaynayno, aanay noqonin biyaa shuban amaba aanay noqonin fikradaheenu amaba hal abuurkeenu samaynayna wax iska daba furan oo wax walba aynu soo saarno, wax walba aynu samayno, laakiin waxaynu soo saaraynaa waxaynu ka soo baxayaa waa in wax miisaaman ahaadaan, intaa ay fulinta ku jiraan iyo intaa tijaabada ay ku jiraan, aanay suuqa iyo dabadda u soo bixin, aynu u maamulno sida ugu qurxoon. markaasi aynu garanno sidaynu u maamulayno fikradaheena, aynu sii joogtayn karnaa inaynu fikrad kale ku dhiiran karnaa inaynu wax kale samayno ama wax cusub soo kordhino. sidoo kale waa in si ay u joogtayno hal abuurka waa inay suurtagalnimo jirtaa. waxaan inagu soo dhacay hore ama waa imiko waxay jaangoynayaan waxa dambe aynu samayn doono. maanta haddaynu ku fashilanno oo aynu joojino, tabarina inoo sii socon mayso. marka waa in fikradda marka hore qorshaha fiican loo sameeyo, dadana la suurtageliyo oo laga midho dhaliyo fikraddii. waxay joogtaynaysaa oo dhiirigelinaysaa dadka hal abuur kale, waxay dhiirigelinaysaa shirkaddii, waxay dhiirigelinaysaa shaqaalihii, waxay dhiirigelinaysaa oo ay kusoo keenaysaa inay kugu soo hirtaan macaamiishii iyo dadkii kugu xidhnaa, oo ay kaa sugaan inaad marba wax cusub usoo kordhiso, mushkiladahooda xalliso, baahiyahoodana aad dabooshin. qodobka ugu dambeeya samaynaya amaba dhiirigelinaya inaynu joogtayno fikradaheena waxa weeye wada xidhiidhku waa u muhiim joogtaynta fikradaha. ha ahaado dadkii aad usoo saaraysay bulshadii kugu xidhnayd, macaamiishii iyo dadkii aad doonaysay inay ka faa'iidaystaan fikradahaaga, amaba ha ahaado dadkan kuu shaqeeya, dadkan kula shaqeeya, dadkan aad wada shaqaysaan ee fikradaha keenaya, ka shaqaynaya, hirgelinaya. waa inuu wada xidhiidh wanaagsan ka dhexeeyo maamulka iyo shaqaalaha, waa inuu wada xidhiidh wanaagsan ka dhexeeyo suuqa iyo shirkadda. wada xidhiidhkaasi wuxuu keenayaa in fikrado cusub la keeno, waxaanu suuro gelinayaa in la joogteeyo fikradihii. guud ahaanba barnaamijkeeni intaasuu inoogu ekaan doonaa. waxaa inoo ballan ah sida ayna farayso dadnimadeenu, sida ayna farayso diinteenu, waxaynu nahay ummad loo sameeyey inay wax hal abuuraan, waxna soo saaraan, baahiyahoodana xalistaan, inaynan cidna waxba ka sugin, fikradaheena fulin u bedelno, dhiirigelino, wax cusubna soo saarno. ummadii waxa ay qiimo yeelataa marka ay nolosha faa'iido kusoo kordhiso, marka ay tacab keento, marka ay bulshadeeda iyo dadka la nool iyo aadamaha oo dhan wax faa'iido leh oo lama jeerto kusoo kordhiso. marka si qiimaha jiritaankeena bulsho ugu jiro, waa inaynu hal abuur yeelano, waa inaynu baahiyaheena inagu aynu dabooli karno, inaynu mushkiladaheena xallin karno, oo aanay wax kastaaba dool inagu noqon ama wax dabad inooga yimaada. waxaa inoo ballanaa kobcinta hal abuurkeena, waxaa inoo ballanaa dhiirigelinta hal abuurayaasha, iyo in aynu bulshadeena horumarkeeda ka qayb qaadano. inta aynu madal kale barnaamij kale ku kulmayno, waxaan ku kala tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aad baad mahadsantihiin.